السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilmo walba marka uu dhasho waa xaalad rabaaniya ama uu ebo markaasi ku abuuray inuu quud ka dhigto ama uu jaqo caanaha naaska hooyada uuna ku noolaado ilaa intuu kasoo korayo. Haddaba maxaa sababi kara in ilmaha uu diido inuu haba yaraatee uu markaasi qaadan waayo ama uu jaqo waayo caanaha naaska hooyada markuu dhasho ama 4 saacadood kadib markuu dhashaba uusan qaadanin haba yaraatee wax markaasi caanaha naaska hooyada ah. Xaaladani waa xaalad markaasi muujin karta in cilad caafimaad ay jirto, waxayna u baahan tahay in markaasi la sii dabagalo oo la raadiyo cilada meesha ay ka jirto ama sababta ilmahan uu qaadan waayo caanaha. Waliba iyadoo markaasi ay sii dheer tahay haddii ilmaha uu yahay mid aad u hurda ama mid aad u oynaya, taasna waxay u baahan tahay markaasi waa calaamad ku tusinaysa in markaasi ay caafimaadkiisa markaasi ay cilad markaasi ay jiri karto una baahan in la sii dabagalo. Haddaba 2 toddobaad ee ugu horeeya ee ilmaha noloshiisa haddii uu caanaha naaska hooyada qaadan waayo, waxaa jira sababo markaasi keeni kara ama calaamado keeni kara in ilmahaasi uu markaasi cilad caafimaad xaggiisa ay ka jirto, gaar ahaan xanuunka loo yaqaano tetanada ama markaasi inay jiri karto bakteeriyada markaasi gasha dhiiga. Si kooban hadduu ilmaha u diido caanaha naaska hooyada ama u jaqo waayo ilmaha maalinta uu dhasho ilaa maalinta 2 ilaa maalinta 5 ee noloshiisa, waxaa jira bakteeriyada gasha dhiiga. Laakiin haddii uu joojiyo caanaha ama uu diido caanaha maalinta 5 ilaa maalinka 15 ee noloshiisa, ilmaha marka uu dhasho waxaa jiri kara markaasi oo macquul ah in ilmahaasi markaas ay hayso xanuunka loo yaqaano tetanada ama tetanaska. Haddaba haddii labadan ciladood aad ku aragtid ilmaha markuu dhasho ilaa inta uu ka gaarayo 15 biri hore ama 20 biri hore ama 2 toddobaad ee hore ee noloshiisa, haddii aad ku aragtid inuu ilmihii markaas u diidayo ama uu jaqi la yahay caanaha naaska hooyada, waxaa markaasi muhiim ah inaad u sameysid baaritaan caafimaad. inaad markaasi ka baadhid inuu naqaska ku dhagayay in kale, inuu sankiisa cabursan yahay iyo in kale. 2 inaad ka eegtid xagga maqaarkiisa inuu isbedelay midabkiisa, sida inuu noqday blue ama huruud jaallo ah. Haddii aad markaasi sidoo kale inaad ka fiirisid xagga wajiga, dibnaha ama bishimaha inay markaasi yeesheen midabka buluuga ah. Haddii midabka buluuga uu markaas aad ku aragtid wajiga ama dibnaha ama bishimaha, waxaa jiri kara suurtagal ah inuu markaasi jiro xanuunka oofta ama loo yaqaano pneumonia, iyadoo waliba caruurta yaryar aan lagu arkin calaamadihii caanka ku ahaa pneumoniada oo ah ilmaha inuu qofacayo. Marmar waxaa jiri karta ilmaha haddii ku aragtid calaamada ah inuu wajiga ama dibnaha ama bishimaha midabka buluuga ah ku aragtid ilmaha uusan qofacayn, inay jiri karto xaalad markaasi tilmaamaysa cilad xagga wadnaha ilmaha ah oo ku dhashay markiisii horeba. Midda 3aad, ka eeg haddii ilmaha uu diido inuu qaato caanaha ama uu jaqi waayo caanaha naaska hooyada 2 toddobaad ee ugu horeysa ee noloshiisa. Ka eeg xagga dhaqdhaqaaqa iyo kala baxsanaanta ama fidsanaanta wajigiisa ee ilmaha. Ka eeg waxaad ka eegaysaa adkaanshaha murqaha jirka ee ilmaha, waxayna taas calaamad u tahay xanuunka loo yaqaano tetanada ama tetanaska. Waa haddii markaasi aad ku aragtid adkaansho ama adayg xagga murqaha jirka ee ilmaha, taasoo markaas sabab u noqon karta ilmahaas inuu hayo cudurka qoorgooyaha ama cilad xagga maskaxda ka timid marka uu dhalanayo. Sidoo kale ka eeg kala furfurnaanta ama kala baxsanaanta jilibka inuu kala fidin karo iyo in kale. Haddii uu markaasi kala fidin waayo, waxay taasi cadeen u noqon karta in ilmahani suurtagal ay tahay inay hayso xanuunka tetanaska. Haddaba haddii aad ku aragtid calaamadahaas aan soo sheegay ilmaha 2 toddobaad ee ugu horeeyay ee noloshiisa markuu dhasho oo haddana uu diidayo caanaha naaska hooyada inuu jaqo ama inuu qaato, fadlan markaasi la xiriir xarumaha caafimaadka si haddii ay cilad caafimaad jirto xilli hore looga hortago, xilli horena markaasi daryeelka saxda ah loo siiyo.